salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. asxaabta sharafta badan ku soo dhowaada kanaalkeena wax ka baro. maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc qiimo badan kaas oo ciwaankiisa noqon doona lamaanaha guulaysta. ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta. waa daraasaad magaceedu yahay lamaanaha guulaysta oo lagu soo aruuriyey siyaabaha lamaanaha isqaba dhiribada ugu taagi karaan qoyska cusub ee yagleeleen iyo sidii ay isaga ilaalin lahaayeen turunturooyinka ka hor yimaada jacaylka iyo qormada cusub ee reer ku degay. guurka iyo nolosha iyo guurku waa kuwo isu xidhan oo isdhammaystira. guur la'aan ama gabadh la'aani waxay la mid tahay guri aan laambad lahayn ama ceel aan lahayn wadantii loogu talgalay in biyaha lagu soo saaro. runtii guurku waa wax ama arrin aad u dhib adag, guur la'aantuna ma macaana. jaamacadda dhabtiihi waa guurka oo qofku la baro waxyaabihii aynu hore u ogeyn. sidaas oo kale siyaasiga ugu weyn waxaa lagu tilmaamaa ka gabadhaasi hogaamin kara. guur la'aan macquul maaha, iska guursana aqli ma aha. inkastoo odayaashii hore soomaalidu odhan jireen nin rag ihi wuxuu ku talo xumaado guurku ayaa u wanaagsan, haddana dhinaca kale guurku waa mas-uuliyad iyo mustaqbal. haddaba mas-uuliyadda iyo mustaqbalka qofka laga doonaya maxay noqon? qof walba wuxuu leeyahay dooqo gaar ah iyo waxyaabo aynu dadka kale la wadaagin. haweenka waxaa lagu tilmaamaa qudrad kala duwan oo aan la garan karin, ta wanaagsan iyo midda xun iyo ta xumaan la imaan doonta. dadka sidaan aaminsani waxay rumaysan yihiin oo keliya nasiibka iyo calafka inuu wax wanaajin karo. qaar kale ayaa aaminsan inuu guurka wanaagsan ka yimaado xulashada wanaagsan. sidee qofku uu xulan karaa gabadh wanaagsan? dabciga iyo dabeecadda qarsoon ee gabadh kasta leedahay ee marka lala aqalgalo ay la soo baxdaa, iyadoo taasi haynoo dambeyso. waa hubaal lamaane kaste iyagoon is arag oo dhinac kasta raali isaga noqon, shaki kuma jiro lamaanaha in isfaham daradooda ay aad u sii farabadato. runtii reer ma lagu dhisi karaa kudhigan qaldan ee odhanaya haween been baa lagu soo xirigeliyaa, runna waa loola dhaqmaa. halkudhigan reer iska daaye wax ka yar ayaan lagu dhisi karin, waayo wuxuu la mid noqonayaa gurisaskii uu ku taagnaa aan la hagaajin. natiijaduna waxa ay noqotaa in gurigii burburkiisa soo degdego. aqligal ma ahan damiirka wanaagsani in uu kula dhaqmo qiyaamo iyo kalsooni darro qofkii la qaybsan lahaa halganka nolosha iyo guud ahaan noloshiisa. tii sirtiisa qarin lahayd, caruurtiisa hooy u noqon lahayd, taariikhdiisa la qaybsan lahayd. suurtagal ma ahan in beel loogula dhaqmo, waana doqonnimo tii ugu weyneed. ragga qaar haweenka quruxda jidhka oo keliya ayay ku qiimeeyaan, qaar waxay ku qiimeeyaan qurux kale, taas oo sida ay u qabaana edebta iyo dhaqanka wanaagsan. halkudhig ayaa ahaa qurux aan edeb la socon waan ubax aan udgoon lahayn. qaarna waxay xoogga saaraan dhinaca aqoonta, iyagoo aaminsan haddii gabadhu ay guursanayaan jaahilad noqoto carruurta inay jaahilnimo jaqayaan, isla markaana ay dhinac kasta oo ka mid ah nolosha qaybteeda ay ka guuldaraysanayso. qaar kale ayaa iyaguna aaminsan in la guursado oo keliya gabadh ku jecel. waxay yidhaahdeen haweenka marka ay ku jecel yihiin waxa aad ka mudsataa malab, haddiise ay ku necab tahay micyo ayaa ka soo horeeya. kuwo kale ayaa rumaysan in haweenku la mid yihiin bakhtiyaa nasiib, ha ku jeclaato aamiya ku jeclaan ee waa ilaahay oo soo saqira. waxayna la mid tahay toddobada layaabka leh in ay ku hagaagaan ee ay ku hagaajiyaan. sidee lagu helaa gabadh wanaagsani? aabbihii cilmi nafsiga William James, mid ka mid ah ardaydiisa, ayaa yidhi ma yara waxyaabaha aan aadka ugu faa'iiday macalinkayga William James, laakiin waxaan aad u sii jeclaystay markii uu yidhi qof kasta markii uu gaaro 18 jir waa in uu gacanta ku hayaa oo ay diyaarsan yihiin shaqadiisa. noloshu waxay noqon lahayd ee gabadhii la qaybsan lahayd halganka nolosha lamaanaha. runtii ma ahan wax fudud, waxa lagu gaari karaa keliya diyaargarow, dadaal, dabagal iyo runta oo waddo la qaato laga dhigto. gabadh fiican oo qofku u horseeda inuu ku guulaysto nolosha siyaabo kala duwan ayaa loo arkaa. dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in aan gabadha la guursan balse dohda la guursado, iyagoo ugu jeeda aad inay ugu wanaagsan tahay qofka doonaya inuu guursado inuu marka hore sii ogaado ciddii sadoh u noqon lahayd, dabadeed sii wanaajiyo xidhiidhkiisa
iyo weliba sodohdii. Qoladani waxay aaminsan yihiin in guur kasta oo ay sabab weyn u noqoto sodohda uu guulaysto oo uu waaro in uu burburo labadaba, iyadoo aaminsan sodohda wanaagsani aad ugu dadaasho sidii ay ninka inanteeda qaba u dhisi lahayd, iyadoo markasta aan ka fikirin dhinaca gabadha wiilkeeda qabo. Qaar kale ayaa iyaguna aaminsan qofka doonaya in uu gabadh wanaagsan helo oo arrinta ku gaadhi karo oo keliya isagoo oo guursada gabadh jecel. Waxay aaminsan yihiin in gabadh ku jecel ay tahay shini, taasoo malab kuu samaysa marka kalena miciyaheedu kuugu soo horeeyaan. Qaar kale ayaa rumaysan guurka wanaagsan iyo nolosha lamaanaha ee hagaagsan in la heli karo qura marka uu jecel ku dheelitirmo iyo iskaashiga oo la wada qaybsado.